والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا وفد شرفت له نوتمد سيدا وين مقاش إنه قصوا قيب قشي شركة إنن وهو قامين أيوه محمد كاهن عاديات بانو سلام يا بركة كوبات. markay inta waxaan salaamayaa marti sharafta nooga timi gobolada UK sida wanaagsan oo quruxda badan iyaguna shirkan uga soo qayb galeen aad iyo aad baan salaamayaa. waxaan kaloo iyana ku xigsiinayaa salaamayaa Manchester oo runtii inkasta oo maaragtay taageerayaashii kulmiye ay naga aadeen safar oo bishan runtii aynu ku jirno bishii fasaxa loo wada bixi jiray ay tahay oo si aad iyo aad aan looga soo qayb galin laakiin waxaan xasuustaa mararka qaarkood halka maanta la fadhiyo oo Manchester oo quri wada buuxiso marka maanta kolley waanu cudur daaranaynaa laakiin inta ka soo qayb gashayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaan kaloo halkan salaamayaa oo ka faa'iideysanayaa miidiyahan maanta aan hor joogo madaxweynaha qaranka maxamed Silaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maxay toy xisbigan kulmiye gudoomiyihiisa Muuse Biixi Cabdi ee ah mustaqbalka madaxweynaha. intaa waxaan ku soo dhameynayaa salaantii aan kollay siday insha Allah waxaan guda galayaa mowduuc yar aan doonayo inaan ka hadlo mowduucaas oo ah waxqabadka maanta kulmiye oo ahaa markii hore dawladda ka dhashay waxqabadkiisii waynu haynaa ma sha Allah wax badan oo qabtay baynu maartay maanta taabanay oo aan hore u jirin imikana waxaynu rajaynaynaa mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi in uu maartay marka uu mustaqbalka aynu mar labaad ku guuleysto kulmiye wax qabadkiisii ayaan imika kolley doonayaa waxyaabaha qaarkood oo aan kolley anigu shakhsiyan idin hortaagan anoo aamina ah aan kolley waxyaabo qaarkood aan gacanta ku hayo ayaan imikana doonayaa inaan ka yar taabto oo aan u sheego anoo media ka faa'iideysanaya. waxa jiray sanadkii hore waxaan joogay wadankii 2016kii waxaan jiray magaalo la yiraahdo Xayira magaaladaas runtii waxa mara laamiga cusub ee Cergaabo halka waxaan soo dhagax dhignay school boardina oo runtii area saraareed aad iyo aad ugu baahan tahay markii hore nagu jirin inaanu dhisno school boardina laakiin markii aanu dadkii iyo tuulooyinkii marnay waxaa noo soo baxay feedback ah in ay dadkii reer guuraa yihiin tuulooyinka iskuuladoodii marka ay ismana ay qayb dhigtaan iskuulada in ay reer miyigu ama tuuladiiba laga guuro oo caruurihii ardayda ahaa lala guuro marka sidaa darteed waxaanu halka kala soo baxnay in ay dadkaasi u baahan yihiin boarding runtii in badan oo hadda anu kiiloomitirkeedii aanan soo koobi karin laakiin aad iyo aad u balaaran oo meesha ilaa saraar oo dhan inteeda badan laamiga xagga uga degsan ma haysato wax boardina halka waxa ka soo baxay school boardina iskuulka waanu dhagax dhignay bishii August sanadkiina soo dhaafay madaxweynaheena maxamed Silaanyo uu soo maray wuuna taabtay wuuna arkay wuuna dhagax dhigay mar labaad madax badan runtii way soo mareen wax qabad badan ayaa loogu ballan qaaday iskuulkuna marka ugu horeysa waxa hindisihiisa lahaa ama uu ka yimid maxay haytay qurba joogta u dhalatay magaalada iyada ah ee Xayira. marka iskuulkaas runtii waxaan aad iyo aad u jeclahay anigoo ka tirsan haweenka garabka koobaad garabka haweenka ahna runtii xubnaha ugu firfircoon ee maanta magaalada Manchester runtii wax weyn u qabatay maxay tahay xisbiga kulmiye
in badanna runtii ilaa intuu ahaa maxay haytay mucaaridka iyo intan uu hadda yahay maxay haytay dawladaba runtii wax badan oo waqtigayga aad iyo aad ugu badan baan siiyay anna maanta waxaan jeclahay maadaama uu maaragtay mustaqbalka aynu heli doono Muuse Biixi waxaan aad iyo aad u jeclahay in aan wax qabadkaas maxay haytay uu noogu aan maaragtay uu ku jiro hadhow dawladda markaynu noqono wax qabadka aan hore u qabanay ee aanu qurba joogtu gacanta ku dhigtay ama ay wax ka qabatay ama ay ahayd markii horeba maaragtay fakarkoodu in aanu dawladdu marka aynu noqonana wax weyn laga qabto insha Allah biidmillah anigu kale waa iga baraarujin iyo inaan iskuulkaas wadno aad iyo aadna waa u mahadsantihiin wax badan oo kale aan oran lahaa waqtiga iyo inagu yar maaragtay darteed intaasaan kaga baxayaa kullina waa wada salaamantiina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh